بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة تطبعاً يشنتي بأنه كل سجال بقول تطبعاً يشنتي بأنه قد بيسي ووقت راشيا غورباتشوف وحكومة هشيس إسكاشي وعينو لقلنا maanta ruush cadaawad fara badan oo reer galbeed iyo maraykanaba saaran oo arrintaa Ukraine ah safaaradiisuna waxay ku taallaa Djibouti. reer galbeed iyo maraykanna safaaradahoodii waa kuwa xalana inoo fadhiyo hadba qof u yeeranaya. arrintaa madaxweyne sidaa jeeb ugu wada hayn karayso anigu dee garan maayo. qodobkaa intaasaan ku dhaafaya. Ethiopia iyo Masaria sidaa jeeb ugu hayn karaysana garan maayo. qatar iyo imaaraadna sidaa jeeb ugu wada haynayso garan maayo. Eritrea iyo Djiboutina kaba daran. madaxweyne kursigii adaa ku fadhiya, laakiin waxaanu kula wadaagnaa saddex shay oo aad u adag: Soomaalinimo iyo diinta iyo dowladnimada. kursiga kuguma haysano, mutaxeleed baad leedahay. anigu wax kale kama shaqeeyo. aroortiina siyaasaddan foofgeeyaa, habeenkiina bahalka markaan ka ilaasho maalintii baa soo xereeyaa. waxaa ii muuqda Soomaaliya inaanay maanta saaxiib aamina aanay lahayn. mar haddii aad dowlado kala dan ah oo kala siyaasad ah oo isku murugsan aad kala baydhi weydid oo aad kulligood u wada gashid, dee allaha sahlo baan leeyahay madaxweyne. waxaan ku talinayaa Soomaaliya waa inay saaxiib yeelataa. qodobkaa intaasaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa doorashadan ka dhacday Puntland waa local election. la rabo in hore loo socdo si loo gaadho national election. sidaa awgeed madaxweyne waa inaad Muqdisho ka qabataa doorashadii deegaanka. lafta gareenna waa inuu qabtaa. maxaa la yiraahdaa ninkan jooga koonfur galmudug isgowrac miyaa la yiraahdaa? war adiguna waa inaad Xaliimo Yare ka faa'iidaysataa oo aad qabataa. cali guudlaawe waxba odhan maayo, laakiin waxaan odhanayaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiqaadir Cosoble ka shaqeeya inay Hirshabeelle ay yeelato gole deegaan doorasho. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa waxaan arkayay xasan cali khayre iyo Sheekh Shariif oo hambalyeynaya, oo sanad baa ka soo wareegtay markaadna lahaydeen wan bood dalka kama dhici karo. maxaa markaa aad u hambalyeynaysaan? ilaa shalay baad gasiiro ka lahaydeen idinkoo midowgii murashaxiinta ah doorasho ma dhici karto wan foodi. dee waa taa dhacday. inaad hambalyeysaan maahayn. haddii kale nuqdado taariikhi ah
dusha idinka fuulaya oo ah nin bay la dagaalamayeen ee ma jirin wax la yiraahdo principal oo dalka iyo dadka u danaynaya ay lahaayeen nimankii ku shiraayay hotel jazeera qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya xasan cali khayre iyo cabdi xaashi taariikhdu idinma cafiyeyso habeenkii xasan cali khayre oo warqadda akhriyayay ee uu lahaa one man one vote baanu u dareeray anigu waxaan ka daawanayay tv-ga farmaajaa saxeexay ra-iisul baarlamaankii baa sidaa loogu dhiibay wuu arkay cabdi xaashi baa sidaa loogu dhiibay wuu arkay dadku waxay ku seexdeen one man one vote cabdi xaashi iyo xasan cali khayraa dhabarka ka jabiyey markaasaa caawa xasan sheekh u hambalyaynayaa siciid cabdilaahi deni iyo puntland wa min aayaati miyaynan xusuus siyaasadeed lahayn qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa soomaaliyey dowlad cid idin dhisaysaa ma jirto cid muraad idinkalena ma jirto haddaydnaan idinku dib isugu noqon oo aydinaan aqbalin inaad dowlad dhisataan nina idin dhisa maayo waxaadna ku noolaan doontaanin sida aad maanta ku nooshihiin si kasii foolxun adduunkuna tatawur ayuu samaynayaa qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa iyo soomaali baan leeyahay alxaqiiqa axmed madoobe 2 kilomitro kismaayaa buu haystaa soomaaliya wuxuu ku yahay mushkilad dee ninka dhabarka kaga dhiftay puntland ee dusha intaasoo sannadood siday miyaa qaranka soomaaliyeed u daahaya waa maya ma absamuu u daahaya waa maya ma ugaadeen buu u daahayaa waa maya ma reer cabdillu u daahayaa waa maya axmed madoobe qaranka soomaaliyeed wuxuu ku yahay masiibo loo soo diray haddii in uun ay dadkaa jubbaland duco iyo karaamo leeyihiin wuu ka xoog badan yahaye war u khalaaweeye fafiruu ila allah ilaahay u carara وإله نقبلها الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.